Dhiirigelinta aad naftaada dhiirigelinayso ayaa ka saameyn badan dhiirigelinta ay dadka kale ku dhiirigelinayaan. Sida aynu wada ognahay, dhiirigelintu waa mashiinka dhaqaajiya bini'aadamka, kaasoo ku riixaya inay fuliyaan ama qabtaan hawl ay ku guda jireen. Si kale haddii aynu u dhigno, waxaynu oran karnaa dhiirigelintu waa shidaalka inoo suurtageliya in aynu ka miro dhalin hadaf aynu lahayn, hawl aynu haynay. Haddii aad doonayso inaad safar u baxdo, marka koowaadba waxaad ka fikirtaa inaad haysato sahay kugu filan oo kuu suurtagelisa in aad gaadho goobtii aad rabtay. Dhinaca kale haddii aynu ka eegno, tusaale haddii aan rabno in aan dalxiis u tagno buurta Daalo, waxaynu diyaarsanaa gaadiidkii aan ku tegi lahayn goobtaas. Markaas ayaynu ka fikirnaa ma baabuur mise diyaarad ayaynu raacnaa. Sidoo kale isweydiinaa shidaal intee la'eg ayaynu u baahannahay si aan u gaarno goobtaas. Haddii aynan buuxsan taangiga shidaalka gaadiidka aynu raacayno, ma u malaynaysaa inaan gaari doono goobtii aynu rabnay? Jawaabtu waa maya. Haddaba ma oran karnaa dhiirigelintu waa shidaalka keliya ee gaarsiin kara hadafkeena iyo himiladeena. Dadkuna sida ay u kala dhiiran yihiin ayay ugu kala dhow yihiin guusha. Taa waxay noo caddaynaysaa qofna waxa uu haystaa shidaal ku filan oo uu ku gaaro meesha uu rabo, ka kalena ma haysto shidaal ku filan. Bal aan isku dayo in aan soo dhaweeyo fahanka. Tusaale ahaan, haddii aad tiraahdo waxaan rabaa in aan ka qayb galo tartanka baabuurta oo aad shidaal kugu filan ku shuban weydo baabuurkaaga, ma u malaynaysaa in tartanka ku guuleysan doono? Haddaba noloshu waa tartankaas baabuurta oo kale. Dhiiranaanta ayaana lagu kala tegay. Haddii aan noqon weydo qof dhiiran oo ay ka go'an tahay qabashada waxa uu doonayo, hubaal waad ku guuldaraysan doontaa geediga guusha. Si ayna taas u dhicin, waa inaad la timaadaa dhiiranaan iyo go'aan adag. Sidoo kale aanad u ogolaan cidna inay ku niyad jabiso. Dhiirigelinta waxay ka timaadaa laba ilood oo aad u waaweyn. Mid waa dhiirigelinta qofka naftiisa dhiirigelinayo, talabaadna waa dhiirigelinta qofku ka helayo dadka ku hareeraysan ama deegaanka uu ku nool yahay. Labada qayboodba aad ayay muhiim ugu yihiin nolosha bini'aadamka. Dhiirigelinta qofka naftiisa dhiirigelinayo ayaa ka saameyn badan ama waxtar badan dhiirigelinta dadka kale dhiirigelinayaan. Weli naftaada ma dhiirigelisay? Ma u sheegtay adduunka in wax adag aynan jirin? Wax shalay aan caqligal ahayn ay maanta caqligal tahay. Wax aan maanta caqligal ahaynna beri ay caqligal noqon doonto. Wixii aad isku adkaysana ay kugu adkaan doonaan. Adduunkan waxaa bedelay waa su'aal uu qof is weydiiyey, bacdeen uu maskaxda ka shaqaysiiyey xalkeedii iyo jawaabteediina raadiyey, kuna guulaystay. Dadka dunida ku noolina kana faa'iidaysteen kuna mahadiyeen. Shalay in la duula oo dayaxa la tagaa waxay ahayd waxaan caqligal ahayn. Maantana waxaa loo hirdamayaa in guryo laga dhisto oo lagu dul noolaado. Shalay caqligal ma ahayn in leer la shito oo dunida dhan iftiinto. Maantana waa arkaysaa sidii dunida dhan u iftiimayso. Dhammaan intaas iyo in ka badanba way dhaceen. Rag baana u fikiray oo maskaxda ka shaqaysiiyey, iyaga oo caqabado badan kala kulmay, bulshadooda kalena kala soo diristay niyad jab, laakiin isma dhiibin. Waxay noqdeen dad u halgama rumaynta riyooyinkooda. Waa adiga arkaya maanta si loogu faaniyo iyo baalka dahabka ay ka galeen dunida. Waxaa isweydiin mudan, maxaad isku dhiibtaa marka aad niyad jab yari kula soo diristo ama wax kugu hagaagi waayaan? Waxaad ogtahay in guusha aan ahayn wax si fudud lagu gaaro, ilaa iyo rafaad iyo dhib loo maro mooye. Maxaa kaa dhigay qof jilicsan oo sabirku ku yar yahay? Ma waxaad ka baqanaysaa guuldarada? Halkee ay wax ka khaldan yihiin? Maxaa kaa dhigay mid caajis iyo wahsi badan? Qayrka ayaa hoggaanka ku haya oo aad ku dayataa halkii adii lagugu dayan lahaa. Sida xayawaankii oo kale, inta qoorta lagaa xiray ayaa lagu hagayaa. Waa qayrka waxa ku jeedinaya ee maskaxda kula ciyaaraya, adiguna warmooge ayaad tahay. Ma waxaad sugaysaa in dadku ku dhiirigeliyaan oo ay markasta aad niyad jab dareento aad raadiso qof ku dhiirigeliya? Ma u malaynaysaa in dadka oo dhami ay ku dhiirigelin doonaan, hal marna ku wada garab istaagi doonaan? Waa maxay ciddaarka beenta ah ee aad naftaada ugu sheekaynayso? Sida in aadan haysan cid ku dhiirigelisa, lacag aad wax ku qabsato, in aadan waxba qaban karayn, iyo qaar kaloo badan. Maxaad uga been sheegaysaa nimcooyinka Allah subxaanahu wa tacaala kugu galladaystay ee tirabeelka ah ay kow ka tahay garashada iyo garaadka, ee aad ku kala garanaysa wax saxda ah iyo wax khaladka ah, awooddaada jismi iyo taada maskaxeed. Haddii aad nasiib u yeelatay in aad haysato lixdii lixaad, caafimaadna aad qabto, maxaa u inkiraysaa ee la cabaadaysaa? Maxaa kaa maqan? Ilaahay ugu mahadi ku siiyey nimcooyinkaas, kana faa'iidayso. Waa imtixaan laga yaabaa in ay ku soo marto maalin aadan haynin. Adigu unbaa noloshaada wax qabsan kara, guulna gaari kara. Cid ku shaqaynaysa ma jirto ee adigu hurdada ka kac oo iska dhig qof jiro oo nool. In aad noqoto qof naftiisa dhiirigeliya waa habka kaliya ee aad guulo badan ku xaqiijin karto. Waxaana kuu fududaanaya dariiqa aad guusha u marayso, maxaa yeelay waxaad tahay qof dhiiran oo u kulul
inuu ka mari dhaliyo hadafkiisa. 7 hab oo naftaada ku dhiirigelin karto. Qodobkeena koowaad, samayso qorshe nololeed. Waa mushkilad aad u weyn haddaad nolosha tan hadaf aadan ka lahayn oo aad ka seexato, iska soo toosto, cunto, cabto, meel aad u socotaba aanad aqoon. Maxaad jeceshahay in aad noqoto mustaqbalka? Maxaad doonaysaa in lagugu xasuusto oo aad dunida ku soo kordhiso? Samayso hadaf iyo meel aad rabto inaad xaqiijiso. Kulley way jirtaa riyo iyo hadaf aad leedahay oo ku gooya fikir aad doonaysa inaad ku soo kordhiso oo dadka anfaca. Riyadu waxay ahaataa riyo, laakiin marka aad go'aansato inaad waraaq ku qorto, way isbedeshaa si ay u noqoto hadaf. La kaalay qorshe qor oo hoosta ka xariiq waxa aad rabto inaad xaqiijiso oo aad gaadho. Kala horeysii sida ay u kala muhiimsan yihiin una kala qabo. Qodobkeena labaad, samayso deegaan dhiirigelineed. Noqo qof markasta ay ku xeeran yihiin waxyaabo dhiirigelinaya. La soco dadka hanka sare leh. Dhageyso khudbadaha ay jeediyaan dadka guuleystay iyo dadka dhiirigeliyaasha ah. Akhri sheekooyin iyo xikmadaha dadka guuleystay. Samayso xikmado iyo hadallo adiga aad leedahay oo aad naftaada kula hadlayso. Taasi waxay kaa caawin doontaa in hadallada aad samaysay ay noqdaan qaar ku dhiirigeliya, sidoo kale ay noqdaan xeer naftaada qabanaya, kana fogeynaya dib u noqoshada. Qodobkeena saddexaad, ha niyad jabin. Marka laga hadlayo niyad jabka, waxaynu ognahay wax kasta oo la rabo in laga qabto niyadda. Sida nabigeena Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, inoo sheegay in camalku yahay niyadda, wax kastana laga qabto niyad. Haddaba haddii aad niyad jabto, ma malaynaysaa inaad rumayn karto riyadaadii? Iska ilaali niyad jabka. Markastoo aad dareento niyad jab, kala hortag dhiirigelin. U soo bandhig naftaada guulihii hore ee gaadhay. Isu soo hordhig abaalmarinadii lagu siiyey, shahaadooyinkii. Una sheeg naftaada in ay guulaha gaadhay. Sidoo kale u sheeg in ayna ahayn xilli ay dib u noqoto. La hadal naftaada, cadowga ha jabin ku dheh, horena u soco, dib ha soo eegin. Sheekh Mustafa ayaa isagoo halganka nolosha ka hadlaya waxa uu yiri, noloshu waa halgan. Inta halganka lagu jiro, dhib, baqasho iyo mushkilad ayaa imaanaysa. Waana in loo sabro oo loo adkaysto, loona dulqaato, oo ayaan lagu talagelin in xalwad la isku siinayo halganka nolosha ee uu qofku ku talagalo in uu dhibaatooyinka u sabro. Qodobkeena afraad, abaalmari naftaada. Naftaadu waa tan keliya ee nolosha guul ku horseeda ama guul daro. Waa tan ka dambaysa inaad gaadho guulo badan oo aad maanta ku faanto. Waa tan heeganka u ah un hirdamaysa rumaynta riyooyinkaaga. Markastoo aad guul gaadho, u mahadceli naftaada, una sheeg in ay qabatay hawshaas kana dambaysay guushaas. Si naftaada abaalmarin. Tusaale ahaan, ku dheh haddii aad hawshaa qabato, waxaan ku geyn doonaa dalxiis buurta daalo ayaad tegi, ama meelaha ugu quruxda badan deegaankaaga. Markasta naftaada heshiis la gal. Ha dulmin naftaada. Xil ayaa kaa saaran. Daryeel caafimaadkeeda iyo nadaafadeeda iyo wixii la mid ah. La saaxiib oo iyada un la noolow. Iyada ayay ku xiran tahay noloshaadu. Tan keliya ee aad ku cilayn doonin waa iyada. Dhib iyo dheefna kula qaadanaysa. Iyada ayaa lagugu abuuray. Qodobkeena shanaad, noqo qof faraxsan. Farxaddu waa tan keliya ee kuu suurtagelinaysa inaad horumar gaadho. Markastoo aad farxad muujiso, waxaa kuu fududaanaysa in aad kasbato dadka oo dhan, oo aad noqoto mid la jeclaysto agjooggiisa. Dadkoo dhanna agtiisa ku dareemaan farxad iyo deganaansho. Qosol oo dhaalacday mar walba. Waxaad ka guulaysan doontaa dhammaan cadowgaaga oo dhan. Maxaa yeelay markastoo aad faraxdo, qososho, dhaalacdayso, cadowgaagu waxa uu dareemi doonaa niyad jab. Sidaas ayaanad ku guulaysan doontaa. 6. Ha isbarbar dhigin dadka kale. In aad isbarbar dhigto dadka waxay ka mid tahay mushkiladaha ugu waaweyn ee ka hor istaagaya inaad gaadho guul iyo horumar. Tusaale ahaan, haddii aad tiraahdo waxaan ahay faqiir, dan yar ah, marka lama tartami karo hebel ama heblaayo oo iga taajisan iyo wixii la mid ah. Iska ilaali isbarbardhigiddu waa niyad jabyaha koowaad ee hadafkaaga. Una sheeg naftaada inta jirnimada ayna ahayn lacagta iyo daaraha ay tahay maskaxda. Inta aad leedahay maskax caafimaad qabta, xiskaagina uu jiro, wax kastaba gacantaada ayay ku jiraan. Kaliya u samir oo Ilaahay tala saaro. Hadal uu Sheekh Mustafa leeyahay ayaa waxa uu yiri, qofka bini'aadamka ahi mar qura ayuu jabaa. Markaasna waa markuu is dhiibo uu yiraahdo waa laga cilmi badan yahay, waana laga xoog badan yahay. Qodobkeena 7, caawi dadka. U naxariiso dadka si Allah kuugu naxariisto. Caawi dadka baahan. Waa abaal aad dhigatay aakhiri adduunba. Adigana marka aad baahan tahay ayaa lagu caawin doonaa. Maxaa yeelay adduunku waa halka labadiisa gelin. Kan hayana ma sii hayo, kalnaana ma sii waayo. Isku day inaad caawiso qof kasta oo gargaar ku biday. Mas'uuliyad ayaa kaa saaran in aad wax u qabato, sidoo kalena aad u horumariso
dadkaaga, diintaada iyo dalkaagaba. Dhiirigeli dadkaaga. Qof kasta oo fikir kuula imaada, niyadda u dhis, garabna sii. Xigmad ayaa waxay leedahay hal eray oo afkaaga ka soo baxa ama ficil aad samayso ayaa qof rajo iyo guul ku abuuri kara, ama niyad jab iyo guuldaro u horseedi kara. Farqiga u dhexeeya innaga iyo reer galbeedku, iyagu waxay dhiirigeliyaan kooda guuldaraystay ilaa inta uu ka guulaysanayo. Innaguna waxaynu niyad jabinaa keena guulaystay ama fikiraya ilaa inta uu ka guuldaraysanayo, halkaasna uu ku baaba'ayo. 7 qodob waxay anfici doonaan noloshaada. Tijaabi oo ku dhaqan. Waxaad dareemi doontaa isbeddel aad u ballaaran. Isku day in aad naftaada dhiirigeliso, ogaatana wax walba aad ku fiican tahay, raadisana hibooyinkaaga. Waxaad ogaataa qofna ma dhiirigelin kartid, waxna uma qaban kartid ilaa iyo aad adigu isbeddel la timaado. Haddaba intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena. Tan iyo muuqaalka xiga inta ku kulmi doono, waxaan igaga tegayaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.